Assalaamu calaykum daawadayaasheeda ku xidhan channelkan Isha Ciyaaraha ku soo dhawaada xubinteennii wararka ciyaaraha. Kooxda Paris Saint-Germain ayaa danaynaysa heshiiska ciyaaryahanka kooxda Manchester City ee Riyad Mahrez sida ay ku soo warantay jaridda Calcio Mercato. Hogaamiyayaasha horyaalka Faransiiska ayaa la filayaa inay xagaaga soo aadan dalab ka gudbin doonaan xiddigan reer Algeria iyadoona ay macquul tahay in lagu bedelo booska xiddiga reer Faransiis ee Kylian Mbappé. shaki ayaa ka jira in xiddigan da'da yar ee reer Faransiis uu baaqi ku sii ahaan doono Parc des Princes iyo in kale dhammaadka xilli ciyaareedkan iyadoona si aad ah loola xidhiidhinayo inuu ku biiri doono safka kooxda Real Madrid. Tababaraha kooxda PSG Thomas Tuchel ayaa indhaynaya ciyaaryahankan reer Algeria si uu ugu buuxiyo booska Mbappé kadib xilli ciyaareed fiican oo uu ku qaadanayo gegida Etihad Stadium. 29 jirkan ayaa dhaliyay 9 gool caawiyana 14 kale 37 kulan oo uu saftay kooxda uu tababaro Pep Guardiola. Tan ayaana ka caawisay in Manchester City ay ku guuleysato koobka Carabao Cup sidoo kalena gaadho rubc dhamaadka koobka FA Cup iyadoona weliba hal lug kula jirta wareegga 8 kooxood ee Champions League kadib markii ay 2 gool iyo hal kaga soo adkaatay kooxda Real Madrid lugtii hore ee wareegga 16. Si kastaba ha ahaatee PSG ayaa ku kalsoon inay xiddigan ku qancin karaan inuu u soo wareego caasimadda France kadib markii kooxda Man City laga mamnuucay inay ciyaarto koobka horyaalka kooxaha Yurub 2 sano ee soo aadan. heshiiska uu Mahrez kula jiro City ayaa ku eg xagaaga sanadka 2023. gudoomiye ku-xigeenka kooxda West Ham United oo haweeneyda lagu magacaabo Karen Brady ayaa rumaysan in xil ciyaareedka laga soo qaado waxba kama jiraan. tan ayaana timid kadib markii FA-ga Ingiriisku ay shalay go'aan ku soo saareen in dhammaan ciyaarihii horyaalka Ingiriiska heerarkiisa kala sarreeya dib loo dhigay ilaa iyo bisha Abriil 4 iyadoona laga cabsi qabo faafitaanka cudurka corona. ilaa hadda wax go'aan ah lagama soo saarin sida loo ciyaarayo inta ka dhiman xilli ciyaareedkan hadiiba ay suurto gasho iyadoona loo balansan yahay kulan kale Khamiista soo aadan. si kastaba ahaatee Brady ayaa soo jeedisay inaan xilli ciyaareedkan dib loo bilaabin marka ay suurto gasho in dib loo ciyaari karo kubadda cagta. waxayna u sheegtay TV-ga Sky Sports ee dalka Ingiriiska sidan soo socota: joojinta ama kansalidda Premier League waxay ahayd mid aan laga farsan karin maadaama ay tani saameyn ku yeelanayso dhammaan heerarka kala sarreeya ee horyaalka Ingiriiska. sida ugu macquulsan uguna caadilsan waa in dhammaan xilli ciyaareedka laga soo qaadaa waxba kama jiraan ama mid aan la ciyaarin oo kale. sidoo kale UEFA ayaana u ballansan shir qabsoomi doona Talaadada usbuucan kaasoo lagu go'aamin doono ayaha koobka Champions League, Europa League iyo weliba Euro 2020. tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta oo maalintii Khamiista ahayd ee lasoo dhaafay laga helay cudurkan ayaa isagu u muuqda inuu durbaba ka soo kabanayo wuxuuna boggiisa Twitterka ku soo qoray fariin u dhignayd sida tan: waad ku mahadsantihiin hadallada taageerada ah ee aad ii soo dirayseen. goor horeba waxaan dareemayaa inaan soo fiicnaanayo. dhammaanteen waxaynu wajahaynaa caqabad aad u weyn oo aan hore loo arag. wuxuu kaloo intaas ii raaciyey: waxaa hadda muhiimka ah waa qof walba caafimaadkiisa. qof kasta waxaa laga rabaa inuu kan kale ilaaliyo raacana hagitaanka bahda caafimaadka waynuna ka gudbi doonaa, ayuu ku soo afmeeray. dhanka kale xiddiga kooxda Chelsea ee Callum Hudson-Odoi ayaa isagu iska soo duubay muuqaal uu isna ku sheegayo inuu ka soo qabtay cudurkani. alle ayaynu ka baryanaa inuu ina garab mariyo sharka cudurkan, isaga ayaa u khayr badan cid badbaado iyo magangelyo la weydiisto. waad mahadsantihiin daawadayaal, intaas ayaynu ku soo afmeerinaa xubinteeni wararka ciyaaraha oo aan idinkula socodsiinaynay wararkii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay caalamka ciyaaraha. fadlan ha ilaawin aad like saartid muuqaalka, share tidhaahdid, sidoo kalena aad subscribe saartid channelka adoo gambadeelka digniintana daaraya.